بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ايدي ندي سلامينا من المينا كتابة يمين المينا نجد داون إنسان وندي سلامينا. وحين كسرنا هاي مقالة جارسة جارهان حافظة كنا سايين كسرنا هاي هالك وحاسكون نمي مصيبة عظيمة وكذا عظيم حافظة reer dhammaale ayaa guryahooda ku burburay oo mataqna dab u qabsaday abaaraha mataqna kowdii duhurnimo ayuu dabka qabsaday guriyaha ayaga wax ka badbaadi ma laha waa guriyahaas ciidaas arkaysaan oo meesha ku burburto macnaha weeyaan waxa weeye walaal waa guri aqal kodkota ah iyo mataqna aqal hoori weeyaan oo ciyaalkii iyo reerkii unba ka badbaaday ama qalabkii iyo waraqihii shahaadooyinkii iyo mataqna wixii tacliin loo soo qastay dhammaan ku burbureen marka insha Allah ta'ala walaalayaal waxa idin la hadlayo Ali Hussein Abu Salma ayaa idin la hadlayo marka insha Allah ta'ala waxa halkaas ku nimi inaad macnaha aynu ogeysiino bulshada Soomaaliyeed ama muslimiinta guud ahaanba in ay u soo gargaaraan reerkan oo guryaha ka burburay oo caawa mataqna meel ay ku hoydaan aysan haysanin marka insha Allah ta'ala inay u gargaaraan oo mataqna tacaawun ay sameeyaan ayaanu halkaas ku nimi inaan walaalaha ogeysiino waxaan ku soo dhaweynayaa mataqna sheekhaanaga oo ahlo qaryada ah oo xaafada si fiican ugu warhayo inuu fafaahin inaga si insha Allah ta'ala sheekh ku soo dhaw Allah ku barkeeyo alxamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du al-aqsadu sheega waa sida reerkana meesha ku gubtay dab ayaa galay waqti 5 saac iyo bar ah aroortii iyo duhradii ayaa dabka galay reerkii waa gubtay aqalooriga waa gubtay kodkotihii waa gubtay reerkii asaga hadda marka muxuu ahaaye wixii dhar ahaan loo qabay iyo wixii weel ahaan loo haastay iyo wixii reerkii uu ku deganaa iyo sidoo u dhanaayo idil waa burburay waa dhamaaday dabkaas ayaa la tagay marka reerkana waa reer bilaaran oo ilaa 8 qof ka kooban 6 caruur ah iyo muxuu ahaa odaygii iyo maamadii reerka iska lahayd marka culays badan oo musiiba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaa meesha ka dhacday walaalaha marka waxaan ka codsanaynaa dhibka inuu dhacay oo waxa la sheegay in xaqiiqo uu yahay meeshan aan taaganahayna hadda aad arkaysaan dabkii iyo qiiqiisii iyo wixii ka dambeeyay waxad musiibada aan aayleen karno dhihi karno waxa guweynay ma naqaano dabkii guriga asoo dhalada ka soo go'ay ma la arkay marka dhibkaas ayaa dhacay walaalaha meel ay joogaan cidii ina maqlayso hadalkeena iyo cidii muuqaalkeena arkaysaba aniga waxaan ahay Maxamuud Buraale Cabdi oo imaamka masaajidka Ibn Baaz waxaan ogeysiinaynaa dhibka inuu jiro ninkii walaal oo gacan ka geysan karo ama hadal walaal kale wax uu fari karo ama wax la qaban karo inta iyada inuu walaalka wax la qabto reerkaas odayga iyo reerka miskiinka meesha degan oo dhibka ku dhacay had habeenkan aan taaganahay caruurtaas hooyad malaha meel ay ku hoydaan malaha yani hatta marihi ay qabeen mooyaan mara iskaga furaan malaha culays aad iyo aad u badan oo laxaw badan waaye walaalaha marka waxaan ka weydiisanaynaa inuu sheegaynaa reerka in loo soo gurmado sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma sha Allah walaal wa intu walaalkii sheegayaan rasuulkeena alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ilaahi subhanahu wa ta'ala adoonka ayuu kaalmeynaya inta adoonka walaalkii u kaalmeynaya asagana ilaahay waa u kaalmeynaya subhanahu wa ta'ala qof walba wuxuu la baxsadanaa iska leh reerkan waxaan rabnaa insha Allah ta'ala muslimiinta in ay macnaha ay u soo gurbadaan ayna ogaadaan in ay leeyihiin dad walaalo oo ka danqado dad muslimiin oo ka danqado in ay leeyihiin in ay ogaadaan weeyaan waa in mataqaana guriga kodkotaha iyo aqal horyaha ka burburay insha Allah aan ugu bedelno guriyo dhagaxyo ama guriyo sara ah maadaama mataqaana booska cid ay degan tahay ay ayada leedahay oo mataqaana kiira waxba aan ahayn marka boloodka waa cid ay iska insha Allah ta'ala marka qof walba wuxuu la baxsado asaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mataqaana u barbaarinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mataqaana siinayo bedel khair qabo marka walaalaha waxaan doonaynaa insha Allah ta'ala barnaamijkani waa in macnaha barnaamij la dhayeelsan kara ma aha ومصيبة أدوين وإن شاء الله تعالى إلهي باكر سبحانه وتعالى قدرك إلهي سبحانه وتعالى يحب وحب كل عن نفر من قدر الله إلى قدر الله قدرك إلهي بعد سبحانه وتعالى مركب قف كستو مسلم وحين دوننا وعد كان وقاري أو مقال كان وقاره إن متقنا ولا لها نسوك الميو حافظ وحويان و
buula masuuri markii la dhaafo xaafadda ku nasa la yidhaahdo weeyaan oo magaalada gaariso marka insha allahu tacaala walaalayaal aabbaha reerka macnaha ilmaha dhalay waa aaba maxamed weeyaan maxamed saciid sumaha aaba maxamed cabdi saciid khayra صح قبل ما هذا شنو؟ خيرة قاسم عبدي خيرة قاسم عبدي وخيرة قاسم عبدي وعروت له العروهيد ويان عروت متغانا مركو دبك وغوريا وككعي دقيقة دير كهر عنب با كسب برارغ غوريغا سغاها وانت سو كسي جيري لها او متغنا الهي سبحانه وتعالى نغو مكينين marka musiibadaas dhacday walaalayaal waxaan u sheegnaa muslimiinta dhammaan meel alla meel inaga daawanaysaan insha Allah ta'ala waxaana filaynaa insha Allah ta'ala barnaamijkaasi inaynu laga soo ajiibo insha Allah ta'ala Allah idin kalmeeyo wixii alla baxdaana ilaahay idin barakeeyo Allah idin ka aqbalo wixii idin haro mataqna reebataana Allah idin barakeeyo subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad insha Allah waa sida ayadoo la sheegay aniga waxaan ahay maxamed cabdi saciid ماشي قوتي إلهي بقوي هدي واحد قوي من قارن ومصيبة إلهي كيني الحمد لله مركا هدي وحي ويلدي إلهي كان لما قادوا وان قادنا الحمد لله حق الله كي باطي مركا مسلمين وحي إنه ترى كرتسية ودها شيئين هنا إنه دران مباهن هاي هذه وأبها المهد عليك المهد الله هاي ما شاء الله ما شاء الله شكرا رقم مركا أبا التلفون لبر أنا بهنا قبل حاسك سو حاسكي لمبر خيري لمبر كادو يري ما 07 ولا بهنا 46 26 94 95 مركله أبا هو سودو ودي